madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo. Wafdiga madaxweynaha dowladda federaalka ayaa garoonka diyaaradaha Gaalkacyo waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynayaasha maamulada Butland iyo Galmudug, qaybaha bulshada iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo Gaalkacyo ku sii sugnaa. inkastoo muddo dheer la sugayay wafdiga madaxweynaha, haddana dadka Gaalkacyo oo aan kala qaybsanin ayaa si weyn uga qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fagaaro kula hadlay boqolaal dadweyne ah ayaa sheegay in safarkiisa uu ugu magac daray safarka nabadda, isla markaana inta Gaalkacyo uu ku sugan yahay uu ka qayb qaadan doono nabadda gobolka Mudug. magaaladan Gaalkacyo aan doonayaa inay noqoto hoygii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed. waa magaalo taariikhi ah oo ay ka yimaadeen halgamayaashii dad ka mid ah ee ka yimaadeen madaxdii qaranka soo maray intoodii badnayd. waa magaalo taariikhi ah. markaasi waxay ahayd hal magaalo ay ahayd oo dadkeedu ay walaalo yihiin. waana ku soo celinayna insha Allah magaaladan inay noqoto meeshii dib u heshiisiinta Soomaaliya ka bilaaban lahayd hadduu Ilaahay yiraahdo. waa mahadsantiin sida sharafta leh oo wanaagsan oo waaltinimada leh oo kalgacaltooyada leh oo Soomaalinimada leh oo midnimada leh aad noogu soo dhaweyseen. insha Allah waxaan u nimid inaan xog wareysanno oo aan wax alla wixii aan isweydaarsan karno talooyina aan isku weydaarsanno oo aan ka shaqeyno magaalada inay noqoto magaaladii ee ka bilaabatay nabadda Soomaaliyeed, ee ka bilaabatay magaaladii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed inaan dib ugu celinno sida meeshan ku taalla inaan magaaladan qaybsan aan mideenno. muhiimaddeeda koowaad muhiimadda dowladda Soomaaliyeed, muhiimadda qof walba mas'uul ah uu leedahay way magaaladan inaan nabadeenno, magaaladan inay noqoto magaalo hala dadka waalaha magaaladan Gaalkacyo inay noqdaan siday ahaan jireen, oo aan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn gobolada dhexe. iyadoo qaybsan iyo magaalada ugu weyn tahay magaalada ee gobolada dhexe. bal ka warrama iyadoo midaysan waxay noqon karto. Abdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.